xukunka sharciga ee xarakada al-shabaab ay leedahay xukunka sharciga waxa soo jeedinaya Sheekh Xasan Maxamed Ibrahim oo kamid ah culimada Soomaaliyeed waxaan filayaa hadee xukunka hore baa loogu sii hormaray oo nimanka waxay yihiin iyo sifaadkooda iyo laakiin inaan ku sameeyno maadaama maqaam cilmi la joogo inaan takyiifino oo waxay yihiin marka la suureeyo kadibna loo bandhigo sharciga Ilaahay si loo garto waxa ay yihiin marka aan takyiifinayno waxaan qaadanaynaa waraahooda iyo aqwaashooda wixii ay yiraahdeen ama maqulaadkooda aqadiga iyo afcaasha ay sameynayaan inaga inoo muuqata taasaynu eegaynaa haddaynu eegno labadaba waxa inoo soo baxaysa inay yihiin firqa daalla si guud inayna ku soconin islaamkii saxda ahaa ee ahlu sunna wal jamaa lagu yaqaanay ee nabigu sallallahu alayhi wa sallam dadkiisa uu ku sheegay dadka badbaadaya inay yihiin maxaa yeelay waxay la jahrayaan maqulaad caqadiya oo khilaafsan ahlu sunnaha waxay banaysanayaan oo ku dhaqaaqayaan aqwaal iyo afcaal intuba ka baydhsan manhajka ahlu sunnaha dadka sidaa ahna waxaa loo yaqaanaa ahlu ahwaa ama firaq daalla si guud haddaynu isku dayno marka inaan muqaarabo ku samayno oon soo dhoweyno kuweebay u sii eg yihiin firaqdaas ama dawaa'iftaas waxaan u kala qaadaynaa dhinaca maqulaadka caqadiga ah iyo dhinaca suluuga camaliga ah dhinaca maqulaadka caqadiga ah ee ah muslimiinta gaalaysiintooda ku dhiirashada dhiigooda iyo hantidooda waxay uga eg yihiin ama ka waafaqsan yihiin khawaarijta waana ta hadda ay shaa'ica noqotay in lagu itlaaqo khawaarij maxaa yeelay dhinacaas haddii laga eego sidaa weyn laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo daahiradani waa daahiro ka mucaqadsan dawaahirtii caqadiga ah ee horey loo yaqaanay oo way jireen hadda mustawaha maqulaadka caqadiga dad kala nooc ah oo aynu awalba takfiir u naqaanay waddanka waa joogeen oo waliba laga yaabaa inay iyaga kaga cadcad yihiin iyagu dee waxoogaa waaba qarsadaan hadday rabaan kay dilayaan unbay malaha dhahan waa gaale laakiin dad kaga cadcad oo dadka gaalaysiiya oo la jahra waa inoo joogi jireen laakiin dadka ma layn jirin suluugooda camaligiihi noocan hadda maanta ma ahayn marka dhinaca shabahaasi waa jiraa maqulaadkooda caqadigiihi waa u egyihiin ama waa yihiin kuwii khawaarijta xagga masaa'il alasmaa walaxkaam dadka axkaamta la siinayo iyo waxa la xidhiidha haddaan haddaba ka qiimayno dhinaca suluugooda camaliga ah iyo waxa ay samaynayaan waxay u egyihiin dawaa'if kale oo kuwaa ka duwan maxaa yeelay khawaarijtu sifaadka xagga suluukiga ay lahaayeen sida nusuusta dee ku cad dad cibaado badan oo quraan akhris badan oo saasaa nusuustu sheegaysa nabiguna sallallahu alayhi wa sallam sida culimada qaar ay hore uga dhawaajiyeen daa'ifadaas khawaarijtu akthar min 10 axaadiis buu kaga hadlay iyaga iyo sifaadkooda marka sifaadkooda iyo iyagaba nabigu waa ka hadlay sallallahu alayhi wa sallam haddaynu marka eegno waxyaalo badan oo xagga dhaqanka waa kaga duwan yihiin waxay dhaqanka aad ugu eg yihiin haddaynu muqaarabo ka samayno ama soo dhoweyno waxay xagga dhaqanka aad ugu eg yihiin niman la yidhaahdo alxashaashiin alxasan ibni sabaax nimankii raacsanaa ee ismaaciiliyada ahaa ayaa dhaqanka noocana lahaa dadka in masaajidda lagu laayo qiyaadaadka mujtamaca in la ikhtiyaalo la laayo waxay gaadheen ilaa salaaxudiin layuubi gurigiisa inay galaanoo toori dhiigle ay u dhigaan oo ay u muujiyaan inuu muhadad yahay dhaqankaa ah ruucbi in lagu abuuro dadka muslimiinta ah in qiyaadaadkooda la baabi'iyo la gumaado culimadooda la gumaado qalaq lagu abuuro mujtamaca oo wax xaaraanan una markaa jirin maal iyo naf iyo waxay aad ugu egyihiin daa'ifada xashaashiinta ama assassiniska loo yaqaano bay runtii aad ugu egyihiin sidaasay isu dili jireen hadda waxaa laga yaabaa dadku inay u haystaan qofkan isdilaya inay qanaaco diiniya kaliya yihiin wuxu kuwaasu iyagoo xashaashiina bay isdili jireen intuu xasan ibn sabaax uu dhihi jiray hebel adigu isdil
meesha iska soo tuur buu dhihi jiray marka waa looga horreeyey noocan isdilka qofku inuu diyaano kaliya isu dilo ma aha qaar baa intixaar isu dila qaar baa hadday rabaan daroogo darteed isu dila qaar baa marqaan kale isu dili kara marka dhinacyadaana daa'ifadaasay u egyihiin haddaan intaa kaga baxo suruugooda camaliga iyo muquulaadkooda caqadiga ah waxaan iyadana ka qiimayn karnaa dhinaca ma'aalaadka afcaashooda waxa ay nimankani samaynayaan halka ay ku dhammaanayaan haddaynu akhrino waxaa runtii inoo soo baxaysa waxyaalo kale waxna inay ajandayaal kale oo dawli ay yihiin baa inoo soo baxaysa